waxaan arkay in baahi weyn loo qabo takhasuskeyga iyo aqoonteeda baahi gaar ay ka jirto sidaas darteed ayaan rabay inaan ugu soo noqdo aan u helo opportunity aan ku soo noqdo wadanka oo shaqadaas oo ka qabto magacaygu waa Dr. Ubax Faarax Axmed waxaan ahay dhakhtarka caruurta waxaan ka imaaday wadanka Talyaaniga magaalada Roma waxaan hadda ka shaqeeyaa Isbitaal Banaadir waa isbitaalka ugu weyn magaalada Muqdisho waa isbitaal public hospital ah oo dawladda leedahay waa isbitaal loogu gargaaro ummadda Soomaaliyeed oo dhan sidii hadda hal erey kuma qeexi karo meel aan meeshii laga baahan yahay tagaa caruurta laakiin hadda the main objective ka meesha u joogo waxay tahay in meeshaas shaqada u qaban lahaa si ay u noqon lahayd meeshaas ay meel kaligeeda socodsiiso dhaqaatiirta juniorka ka shaqeynaysa aan tababar ugu sameyn lahay ha ahaato skills ha ahaato coaching ha ahaato shadowing ha ahaato maalin walba wacyigelin iyo tababar joogto ah oo job training aan u sameeyo si ay hadhow u noqdaan dad iyaga isku filan oo kasii hanqaado meesha ugu taga shaqada ilmaha hadda dhashaan markay xaalad degdeg ku jireen awal waxaa loola soo carari jiray qaybta caruurta oo waxay ku qaadan jirto waxaa dhici karto 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo waxay noqotaba hadda waxaan helnay traininga kadib in dhakhtarka meeshiisa isla markuu hooyadiisa caloosha ka soo baxo in hadda 24 hours oo dhakhtar meesha joogo waa achievement aan gaarnay ميدا أنا وحنو أركانو يا كباس بيلدين مركا حاجو فايدة سكرنا أنا ستيب أنا وبعنا هاي أنا جو بعيدين شيئا أنا أفضل ما أنت كلسوني بواحد الحقوق بقى إن هذه المير ريستيشن وبعدين وسمعين كرا سواء كبخانين إنه ستيب لوبيو مركا سوى نكسم برنامج حاجو فايدة سنة وقت بدنا نجلسي دكتورة aad iyo aad ugu faa'iideysanay koor iyo kadibna waxaan faa'iido badnayn markii barnaamijka loo sameeyay aan wax badan ka faa'iiday Dr. Ubax markay timaaday bishii September ugu soo biirtay ilaa ay hadda runtii maalinna firaaqeedin waqtigeeda waxaa laga yaabaa familkeeda xataa inaysan la qaadan mar walba ay isbitaalka dhex taagan tahay isbitaalka waa isbitaal teaching hospital ah waxaa ku tababarata 13 jaamacadood oo ku sameeya internship program ku sameeya 400 oo arday ka badan ayaa ku qaadata bishii intaas oo arday ah waxay u gudbisaa aqoonteeda waxay ku sameysaa on job training in xirfadii ay ku practice garay meesha ay tusiso wixii ka qaldan patientii korkeeda ku practice garaya darsu horte waxyaabo badan aan ku jeclahay waxa ugu muhiimsan waxa waaye waa qof humble ah flexible ah يعني إسلامينيسن كنجرين أو سي أديك قف كليجا يو كليت وحكو شيء جايو بكاسيت وحاول فائدة سا أو فرحت كجرت بحكينتي إن أنا حتى إيه جرتو أقونتي أن هنا حتى جود بنتي دي أي سهلاناتو هذا هو يكستو ولا ليس واحد كرت تاجن أختار نيوبا وتوبر وقيت عروض كشقية وحنا توبر الدكتورة سواح هذا أهل هنا لأنت ما أنا سو كردين سيرفيس كاسكوالا تجله أنا جنوا وحي وحول بقول تلاقي تصالح إسبتالك أي حتى هو كبتا كلية ما أهن إن نيوبن كشقيس وحول بقول إسبتالك لو جوهر مريكا أي نقل شقيسة